agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Somaliland ayaa maanta waxa uu kormeer ku soo maray garoonka kubadda cagta ee Cabdalle Stadium ee magaalada Berbera waxaana kormeerkaasi ku weelinayay isuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Saaxil iyo xogayaha dawladda hoose ee degmada Berbera ugu horeyntii waxa halkaasi ka hadlay isuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Saaxil Shaafici Jaamac Aadan waxaanu ka waramay garoonkan waxaynu joognaa maanta garoonkii Stadium Cabdalle waxaynu ku jirnaa hawshii rooga waxa inoo yimi oo inala jooga aad iyo aadna ugu mahadnaqaynaa farxadna ay noo tahay inay noo yimaadaan agaasimihii guud oo iyo wafdi uu hogaaminayo oo ay ka mid yihiin agaasimaha waaxda ciyaaraha jamhuuriyadda Somaliland hawl baa ka socotay baryahanba laba cisho ka hor halkan waynu ku kulannay hawshii ka socotay waxa weeye sidii roogan Berbera loo dhigi lahaa xubna ka tirsan wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo xildhibaan Bariid oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxay yiraahdeen waxa maanta farxad noo ah inaanu joogno garoonka Cabdalle Stadium oo roogiisina uu yaalo garoonka dhexdiisa kaasoo ay wasaaradda iyo iska kaashanayaan degmada oo la doonayo in garoonkaasi maadaama muddo yaalay in la dhigo rooga sheego garoonkan waa garoon standard ah aad iyo aad u qurux badan si fiican looga shaqeeyay dadku waxay ku xisaab iyadoo maanta ay farxad noo tahay dhigista roogii cagaarna ee garoonkii weynaa ee Berbera ee garoon Cabdalla oo ahdigii Cabdalle golihii deegaanka ee xilliga aan ka mid ka ahaa garoonkan aanu dhisnay oo ku guuleysanay maantana aanu dhigayno roogii cagaarna xogayaha dawladda hoose ee degmada Berbera Cabdikariin Aadan Cadde oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in ka maamul dawladda hoose ay wixii karaankooda ay dayactiri doonaan garoonkan anagu ka dawladda hoose ahaan waxaanu ballan qaadanaa intii naga beegnayd inagu ayna ka wada hadlay iyo ina badan oo kale oo haray iminka maanta haddii garoonka la bilaabo oo la arkayo inuu dalku gaaban yahay in wax badan oo kale ka dhiman yihiin waa la arkayaa in roolkii dawladda hoose ku lahayd iyo inta anagu aan ku lahayn waanu sii laabaynaa waana runtii shaqadayda la shukr al waajib haddii maxay ahayd toy aad nagu amaanteen inaanu maxay ahayd toy qayb weyn ka qaadanay ciyaaraha iyo sportska iyo saddexgalka dhalinyarada ee magaalada Berbera ee wasaaradahan anaguna fulinahan waxaanu amaanta siinaynaa golaha deegaanka ee magaalada Berbera oo runtii noo suurtageliyay in mashaariicda iyo qorshayaasha iyo budgetka aanu sameeyno noo ansixiya agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Somaliland Cabdikariin Xuseen Siciid oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in garoonkan lagu qaban doono wareegyada kala duwan ee ciyaaraha gobolada dalka Somaliland annaga waa go'aantay ka wasaaradahan maxay roogan la dhigo saamka arkaysa aan ugu taaganahay waa shaqadii la bilaabayay maxay ay noo go'aantay annaga waxaan maxay rajaynaynaa oo waliba ballanteedu tahay in maxay madaxweynuhu socodka madaxweynaha imaka in maxay noo dhagax dhigo ujeedada ugu koowaad ee meesha waxay weeyeen in madaxweynuhu soo noqodkiisa inuu dhagax dhiga sameeyo oo maxay ahaday ay nagala shaqeeyaan maxay golaha deegaanka maxay Berbera aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa golaha deegaanka Berbera garoonkan waa garoon aad maxay u baaxad weyn waxaanu ka mid yahay garoomada waaweyn ee dalka waxaan maxay soo sheego xogayo waxaan ballan qaadaynaa in ciyaaraha gobolada roog la dhigo in maxay lagu qabto maxay garoonkan aad baan rajaynayaa in garoonkan lagu qabto ciyaaraha gobolada marka roog loo dhigo waana ku standard waxaan ku yeelaa maxay gobolada u dhaxeeya gobolka Saaxil Cabdirasaaq Qaasim Jaamac wararka telefishinka Sam News TV magaalada Berbera.